gabadha ugu fudno gabadha qabina ugu fudno iyo ninka mutaqaana yarkan kale Cabdalla ina ugu fudno macnaha ujeedkeena midna ma aha laakiin dhacday ina kale isku beddelninkii hadda waxa waa mutaqaana ninka waa lagu dhagan yahay inaa dacwo ka iyo xaaskiisii reer dhan oo dhisnaa uu kala geeyay ninkii. Assalaamu calaykum saaxiibayaal, soo dhawaad muuqaal cusub waana weleetaas mid ka daawanaysan waa leetaas ma fashiyaal isku soo noqdo wanaagsan waxa waa baryahan iyo wax soo dhigay waa ka maqnaay waa ka mashquul ah armeer oo maaragta family waxa ka mashquulay marka caawa isku soo laabanay insha Allah caawa waxa ka hadli doonaa muuqaal barnaamijkeena mutaqaana hadallaynta bulshada muuqaal waliya noo caawaday waa muuqaalkan cawad waxa uga hadli doonaa yar saaxiibkeena oo dhamaantiin cawad taqaanaan oo la yiraahdo Cabdalla Roy lagu dhagan yahay waxa waaye ninkaas dadka waxa waaye sheekh TikTok aan ninkaas ku ogeyn oo nin sheekh TikTok dadka wacdiya ku ogeyn laakiin waxa waaye sheekh isku bedel sheekh dhilay isku bedel ninkii hadda waxa waaye mutaqaana ninka waa lagu dhagan yahay inaa dacwo ka iyo xaaskiisii reer dhan oo dhisnaa uu kala geeyay ninkii waxa waaye nin saaxiibkeena oo la yiraahdo Haykal ayaa wuxuu aroosay gabadhii markuu aroosay oo laba maalin camal uu qabay gabadhii uuraha laga helay markii yaa ku ureelaan waxa waaye arrintii Cabdalla Roy soo biishabatay marka wariyaa in ku daalin waxa waaye cadeymo badan loo haayaa asaa codad laga haayaa mutaqaana yarkii oo gabadha qabay oo hadlaa la haayaa aniga reerka inay dhisan yihiin iyo inay kala tageen waxa waaye ma kaali kari oo taas ma ogi anaga macnaheena ma ahan hadda in anaga gabadha uga fiims gabadha wax ka sheegayno laakiin wixii dhacay isay wax u dhacayna ka hadlayna horta aawada aragna bal wiilka iyo gabadha arooseen waa kuwan arooskooda waa week ka hor waa hadda asbuuca laga jooga markaas arooseen waa kana muuqaalkooda waa kana oo daawan nooraadin miriyo mi weynteedu waa abiga mandeeqa halkaad marka kaga taalo maamulo xafiiskaaga mid kaleba anoo raadin miriyo mi weyn saa u jeedaan waxa waaye muuqaalka waa aragteen oo wiilkay gabadha arooska is arooseen gabadhaasi wiilkaas waay wiilkay kala lahaa gabadhan hodana lahaa gabadha meelaha waxay ka imaatay Yurub miyaamse America ka imaatay Hargeysa dhowr bil ka hor imaatay marka gabadha yarkaana soo doontay familkeed ka doonto aroosay gabadhii markuu laba maalin ay la joogo waxa waaye walaa waxa laga dareemay baaritaan la geeyay uur soo baxay dhowr bil leedahay gabadhii marka waxay dhahdeen arrintii waa la qabsado ninkaana hawsh ka dambeeyay dhahday marka ninkii oo mutaqaana oo Haykal oo gabadha aroosay oo hadlaayo aawad aragna waxa walba macnaha iska dheh waa la dhahay inaa u dhahano fiicna waa laga fiican yahay waxa waaye inaa idin qancino oo cadeyn idin tusno ninkii oo gabadha aroosay oo hadlaayo marka waa kana muuqaalkiisa oo daawan saaxiib wax kasta way jiraan saaxiib ma garatay wixii dhacayna saaxiib otaniyo cadow kastana niyo takulada tuuba ku jibisa ma garatay sax cadow waa la jibisa saaxiib wixii dhacayna way dhaceen waxaana waa laga tagay laakiin wax dhibi ma jiraan maanta oo aqdala maanta aan ka murugoonaya ama maanta wax aan qof walba aan wax ka qaato oo bay ugu noqotay waxaas garanaysa sax wax kastaana way dhacaan adduunka garanaysa laakiin maanta inaan inta ayaan ugu mantala gelin walaalkeen inaan teeda ayna ka uma soo fariisan inaan tooyan teedii waan isku shanay imkana wax dhibi ma jiraan laakiin waxa maanta na soo dhexgalay anaga iyo gabadhaas waa wiilkaas laakiin wax dhibo maanta aan u qabaano ma jirto laakiin ninkaas ma naga dhigayso saaxiib laakiin fiiri dhigayso walaal laakiin wiilkaas iga dambeeya aboowe maanta social media ama gaar ahaan TikTok saa u jeedaan muuqaalka waa aragteen oo ninka gabadha aroosay soo dacwo ka oo hadlaayo oo waxa waa ani reerkaygu kala geeyay marka ninkaas horta aniga waxa ku ogeeyay sheekha oo TikTok ka wacdiyo dadka cid isdheeysa malaha mutaqaana nin waxaas ka suurtooban iyo waxa waaye waxaas camal laga filaanay maahan dadku TikTok ka wacdina dadkana way jeclaayeen ninkii Saadroy ama Cabdalla ninkaas nin sheekha waxa ku ogeeyay mutaqaana TikTok uu dadka wacdin jiray waa sheekha TikTok loo yaqaan hadda laakiin ninkii waa isbedelo arrimihii waxa waaye uu ka tagay ninka ayaan hore wuxuu tagay Hargeysa gabadhan Hargeysa joogtay meesha arrimaha dhamacda la iskaga dhigay marka codada laga duubay mutaqaana iyo fiidiyoyaal codada laga hayaa oo codadkiisa yaala
social media wareegaya soo cod laga duuba oo waxaa waaye gabadha iyo reerkeeda uu gafaayo iyo yarka gabadha aroos intaba marka Soomaaliya hadda wax la aaminayo ma jiraan hadii waxa waaye reer dhisan loo dhacayo oo la kala wadayo waxa waaye waa another level waa sheekada bamisa marka aniga macnaha qorsheena ma inaan gabadha u gafno gabadha qabina u gafno iyo ninka mutaqaana yarkan kale Cabdalla inaan u gafno macnaha ujeedkeena midna ma aha laakiin dhacdada dhacday inaan ka hadalno oo dadka oo tusno mutaqaana say wax u dhaceen dad badan oo ku wararsanay jir say wax u dhaceen tusno unbuu ujeedkeena ahay muuqaalkan intaas ku eegay aad iyo aad u mahadsantiin soo dhawaada insha Allah muuqaalka xiga noo balan hadaan ugu cusubtan ugu soo bir muuqaalkan si share garay like noo saar aad u mahadsantiin